Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh saaxiibada qiimaha badan ee ku xiran janaalkan soo dhawaada waa mar kale iyo muuqaal cusub. Haddaba muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa musalsalka walaalaha. Haddaba saa wada ognahayba xaleetole waxaa la baahiyey goosgoos runtii aad iyo aad u xiiso badan. Haddii aan ku laabano goosgooska waxyaalihii ugu xiisaha badnaa ayaa waxay tahay gardaradii Duru ku gardaraysanayay ninkan kale ee lagu magacaabo Cumar. Maxay tahay sababta uu Duru Cumar u foodeynayay? Haddaba fadlan intaana muuqaalka guda gelin subscribe saar janaalka, sidoo kale like saar muuqaalka. waa mahadsantahay. Hadda kadib janaalkan ayaan usoo wareegnay oon muuqaalada si toosa usoo gelin doonaa. Haddaba goosgooska xaleetole saa wada ognay waxaa mid xiiso badan ayuu ahaa kadib markii Duru uu foodeeyay ninka lagu magacaabo yarkan Cumar ah. Ma laga yaabaa Cumar in uu Duru dilo? Sidoo kale hadda saa wada ognahay Cumar iyo Duru baa micnaha ma kala dhacaan oo mid hadda kama sarsidii bilowgii hore ee ku arkaynay. Micnaha filinka bilowgiisa waxaan wada ogeyn ninkan Duru lagu magacaabay in uu guumaysan jiray yarkan kale ee lagu magacaabo Cumar. Haddaba xalqadaha soo socda waxaa kala tagi doona Duru iyo Caasiye kadib markuu uu ficladan ku dhaqaaqo. Tan isweydiinta mudan ayaa waxay tahay gabadhii email ahayd halkay ku dambeysay. Maxaanse ugu arki weynay goosgooska labaad ee xalqada 34? Sidoo kale waxaan u arki weynay Nabhat oo dhimatay ama Nabhat oo la geeyay meeshaas ee dhakhtarka. Nabhat sida la sheegay waxay ku jirtaa dhakhtarka. Durukna tan saas darteed ayuu Cumar iyo u foodeynayay tahay. Saa wada ognahay Duru waa uu jecel yahay hooyadiisa, sidoo kale hooyadiisa wuxuu kasii jecel yahay Melissa. Duru marka uu ogaaday Melissa in ay samaysay ama in ay dishay Qadir, talow muxuu samayn doonaa? Haddaba sababta dabcan ka dambaysa in aan arki weyno Nabhat oo dhimatay ama Nabhat oo meel lagu sheegi waayay maxay tahay? Tan koobaad ayaa waxay tahay in la raadinayo writing ama aan kaaninta koobaad ku soo laabano taxanaha dabcan taxanaha Kardashian ahaan in aan kaaninta koobaad dhanka daawashada ku soo laabano. Tan labaad ayaa waxay tahay in micnaha xiiso oo kaliya la rabo. Haddaba email ayada dhimashada ama inta xabada ku dhacayso waa xalqada soo socota ee 34 dhamaadkeeda. Taasna waa ku naqaanaa musalsalka walaalaha oo inta ugu xiisaha badan mar walba waxay ka dhigaan xalqada dhamaadkeeda si loo xiiseeyo xalqada kale ee soo socota. Saas darteed xalqadii u dambeysay ee saan wada ognahay waxay nagaga dhamaatay meel runtii aad u ximaadaysan, halka xalqadii tan ka horeysana ay kasii ximaasad badnayd meesha ay nagaga dhamaatay. Marka saa darteed xalqadii u dambeysay ee korkac weyn ayaan sameynay dhanka daawashada, halka aan nimanay 10.45 dhanka ratingka. Laakiin nasiib darro kaaninta saddexaad ayaan ilaa iyo hadda ku jiraa. Taas darteed waa laga yaabaa in mar kale directorada taxanahan ay raadinayso kaaninta koobaad in ay dib ugu soo laabato. Inkastoo weligeenba aan kaaninta koobaad ama raankii taxanayaasha Turkiga aan kaaninta koobaad ugu jiray, haddana waxay rabtaa in kaalinta koobaad ay taxanaheeda Kardashian ay ku soo laabadsiiso. Taxanaha ayaa wuxuu runtii cagta soo saaray meel xun. Sidoo kale taxanaha ayaa loo leeyahay jilaa sax ama atoore sax ah oo taxanaha hogaamiya. Saasay tahay horta sheekadan ma sheegi kari in ay tahay sheeko saxsan, laakiin nasiib darro waxay sheekadan dhanka u socotay dhan kale ma kala fahmaysid. 2 bilood ka hor ayaa waxay noo sheegeen in Emily Nabhat ay dhimo rabto, hadda ay dhimo rabtaa. Maalmihii u dambeysay waxay noo sheegeen in askariyeed cusub lagu soo diray, ilaa haddana ma hayno. Haddaba maxay tahay khilaafka dhex yaala Duru iyo Cumar? Tan koobaad ayaa waxay tahay waa in Duru hooyadiisa ay dhimatay, markaas ka bacdi uu cuqdad u qaadaa dhammaan reer Eren. Iska soo horjeedka ciyaarta ama sida loo bedinayo ayaa waxay ahayd reer Eren iyo reer Atakul. Reer Eren waan wada garanaynaa, reer Atakulla waan wada garanaynaa. Saas darteeda ninkan lagu magacaabo Duru waxa uu foodeyn doonaa Cumar asagoo lugta u dhigaya. Wixii intaa ka dambeeyay Uljan ayaa asagana sii foodeynaya oo micnaha dhibaya oo asagana tuuri doona. Haddaba isla goosgooska dhexdiisa ayaa waxaan ku arkaynaa asagoo intuu soo orday Cumar sii tuuraya. Taas garanay oo waa khilaafka dhex yaala
wiilasha reer Kardashian ama taxanaha musalsalka walaalaha. Tan kale ayaa waxay tahay arinka ugu leebka badan in wada suganay waxay ahayd kala taga Orhan iyo Shenguul. Orhan maxuu sameyn doonaa kadib markuu islaantii meeshii ka tuuray? Orhan afkiisa ayuu xirtay wax hadalan kama dhaqaaqin, sidoo kale Shenguultii uu lahaa guri aan labadeena ku wada laaban ma jiro, way heshiiyeen. Sida aan gooskooska ku arkaynaba si wanaagsan ayay u wada hadlayeen. Ka imo halkaas yuu yahay qofka isku dayay in uu soo weeraro odaygii Orhan ahaa dhulkana dhigay. Tan loo badinayo ayaa waxay tahay in ninkan Duruuk lagu magacaabo uu soo weeraray yarkan kale yarkan iskay marka ninkan Orhan lagu magacaabo uu soo weeraray. Taasi waa tul loo badinayo wayna iska cadahay in Orhan la soo diragaas loo soo adeegsaday. Dhanka kale tan ugu yaabka badan ayaa waxay tahay maxay tahay sababta uu beerkii uga soo horjeestay dhammaan dabcan maskiinimadiisii iyo sidoo kale dhanka kale uu ugu beeray dhanka Duruuk iyo xumaatada. beerkii waxaan wada ognahay gooskooskii xariitu wala la baahiyay in uu ku lahaa aniga inuu IBK ku lahaa waan ku jeclaa IBK waan ku bariyaa taas ha iloobin haddana uu la ciyaarayay dhankaas iyo Duruuk iyo cadayn kuma hayno ninkan lagu magacaabo beerkii malaha asaga oo dabcan ka soo horjeeda ama Cumar ka soo horjeeda ama la dagaalamay wax cadeen kuma hayno ama wax video laakiin kuma arag laakiin ereygaasi ayaa daawadayaasha musalsalka walaalaha runtii argagax geliyay halka falal macnaha rad ficil badan laga soo jeediyay ama jawaabo badan la bixiyay arinkaasi laga hadlay marka waa tan sababta koobaad in uu ka soo horjeesto ay noqon ama in ereygaasi uu si kale u waday ay noqon doontaa sidoo kale gooskooskii xaleeto lama ahayn gooskoosi faahfaahsan waxa uu kaliya ahaa gooskoos runtii dhalinyarta uu kaliya ku saabsan badanaan dhalinyarta khiraafkooda ayaa lagu soo koobayay trailerka labaad ee xalqada 34 waan arkaynaa wax walba sida ay u dhacaan xalqada soo socota ee 34 ayaa waxay noqon doontaa xalqad aad iyo aad u xiiso badan dhanka kale waxaan idin sheegaynaa qoftii Melissa ahayd in taxana ay heshay taxana lagu magacaabo Baba laakiin nasiib daro marka hore waxaan u maleynayay in atrisha ka noqonayso sida hadda naloo sheegayo gabadhaasi taxanahaasi waxay ka noqonaysaa dabcan taxanahaasi waxay ka noqonaysaa aktarka walaashii waxaad u taqaantiin Ali Riza weeye atooruhu taxanahaasna sanadda cusub hadda waa la gal rabaa sanadka cusub ee bisha koobaad dhexdeeda ayaa la daawan doonaa taxanahaas lagu magacaabo Baba hadda duubistiisa waa ay bilaamatay wax walbana waa lagu guda jiraa halka ninka qadiir lagu magacaabayo uu helay door laadirnimo ah taxanaha Utkurush ama 3 kumi ayuu doorkaasi ka helay oo taxanahaasi ayuu asaguna nasiib wanaag helay haddaba tan isweydiinta mudan ayaa waxay tahay maadaama uu taxanaha sii waarayo muddo gaadhaysa 2 year 3 year sida ay noo sheegeen in ay horta arinkan ka laaban doonaan ma sheegi kari laakiin taxanaha waxa uu sii jirayaa ilaa 4 season horta 4ta season waxa qasaba ninkan Cumar lagu magacaabo in uu joogo laakiin Duruuk isaga cinaha muhiim ma aha in uu 4ta season ma joogo minaha directoradu way awoodaa in ay ka saarto sidoo kale waxay awoodaa in uu sii joogo haddaba haddii la alla xitaa Duruuk uu tago maxaa dhici doona ma laga yaabaa in loo baahdo maxay tahay sababta Duruuk ku kaliftay in uu ku soo laabto laadirnimadiisii macluumaadadaas iyo macluumaado kale oo ka muhiimsan waxaan uga hadli doonaa dhammaan muuqaalada soo socda waxaana idinku wargelinaynaa in aanu janaalkan si rasmi ah hadda u soo degnay janaalka Khalid Dramana waxaan uga hadli doonaa musalsalo ana soo falanqeyn jirin sida musalsal aan af Soomaali lagu soo turjumin oo Turki iska macnaha musalsal asxaabta Khalid Drama ay dalbadaan inkastoo labadiina waa isku mid yihiin inta halkan joogtan ee halka ka timid waa kaliya waa kun ayaad gaadheen maasha Allah kun subscribers ay duba gaadheen ayagoo macnaha muuqaalo badan u yaalin waana asxaabta Khalid Drama ay ku wada socdaan sidoo kale hadda asxaabta Khalid Drama haddii aad tahay baan ku soo dhaweynayaa anigoo saaxiibkina Khalid ah waxaan idinkaga tagayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh